maxay tahay ragow xaasidnimadan maxay tahay naxariis darrada intaa la eg maxay tahay haddaad doontaanna hoostaadna gashanaysaan oo haddaad doontaanna sunbaad noo cabaysaan haddaad doontaanna annagaana ceebeynaysaan haddaad doontaanna annagaana dilaysaan xaggee baan idiin raacnaa ragow xaggee idiin raacnaa ragow sideen idiin aaminaa dee horaa waxaa loo yiray nacfi ma leh xaniiyuhu hadday nacas ku yaallaan tolla-ay nacfi ma leh xaniiyuhu hadday nacas ku yaallaan ragow sidan naga daaya ragow naga daaya sidan war inaan ragow hadday maanta dumarkii Soomaaliyeed nin ajnabi ay guursadaan social media usoo fariisanaysaan dhaqankii bay ka tagtay diintii bay ka tagtay annagayna bahdilaysaa nin ajnabi bay guursatay raggii Soomaaliyeed bay ka faanaysaa baqbaqba meel la soo fariisanaysaan maxaa ugu wacan sababtee bay nin ajnabi ay u guursatay gabadha Soomaaliyeed adaa ugu wacan saa kuma aamini kartay sidee kugu aamintaa sidee bay kugu aamintaa gabar Soomaaliyeed inaan ragow see kugu aamintaa nin naagtiisii wax ka duubayo hadda waa maradaadii naagtaada waa maradaadii nin naagtiisii wax ka duubayo muuqaal ka duubayo cod ka duubayo sidee bay ku aamintaa sideen idinku aaminaa gafka intaas la egse ee dumarka idiin geysteen inaan ragow waa maxay waa tan madaxayga ka weyn aniga gafka aan idiin geysanay oo ilaa intaa la eg oo aad naga goosanaysaan waa maxay inaan ragow sidee gabar ku aamintay oo isku kaa dhiibtay ku hindistay inaad wax ka duubto sideese damiirkaagu kuu siiyey xaaskaaga inaad muuqaalla ka duubto misna social media aad dhex geyso dee social media baad qalad ka fahanteene kamoon yaaqay ragga Soomaaliyeed baan la hadlayaa social media baad qalad ka fahanteenba dee teleefoonadan casriga ah sida loo isticmaalo haddaadan garanaynin dee iska dhignin yahow oo qaada Abu Tooshli iyo Kriiski ahaa oo dee halo waa dhihi kartaa isgaarsiin waa kuugu